بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو أقر عبد السلام حسن محمد أهنا أفيانك اسمدا dhaqanka gobolada SSC waxaan halkan ku fadhinaa dhammaan ismadii SSC iyo guddiga 330 ahaa guddigoodii fulinta arintan soo qaadnay waxa weeye inaan jawaab cad ka bixino arintii meediyada ku jirtay oo ka soo yeedhay shir goboleedka IGAD arintaas oo ah in maaragtay la dhexdhexaadinayo goboladan dhibku ku dhacay iyo Somaliland marka ugu horeysa waxaan leenahay arinta waxba kama jiraan cidna la soo xidhiidhay haba yaraatee oo arintaas nagala soo xidhiidhay ma jirto hadday dawlad tahay iyo hadday shakhsiyaad tahay iyo hadday urur tahay toona cid nagala soo xidhiidhay ma jirto qodobka labaad waxa weeye waa mahadinaynaa IGAD inay miiska soo saarto dhibaatadii iyo dacadii halka ka dhacay ay aragto ishana ay ku hayso wixii dhacay iyo wixii dhici doonaba waxaan leenahay waa maadsantihiin wixii dhici doona ee loo marmarsiyoonayna isha ku haya waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaan leeyahay annagu Somaliland baa la dhexdhexaadinaya dhibaato dhexdeeda ka jirta annagu haddaan nahay gobolada SSC kama tirsan Somaliland horena waa u sheegnay hadeerna waan ku celinaynaa golahaas uu ka soo baxay warkaasina waxa weeye golihii dhaqanka iyo golihii 330 ahaa ee arrimaha la saacado fadhiyay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh